magaalada Xumbabays ee gobolka Bari. Ururka Daryeel Development Association ayaa kormeer shaqo iyo howlo isugu jira ku tegay magaalada Xumbabays ee gobolka Bari. Ururkan oo ay ku midoobeen dad muxsiniin ah ayaa qorshahoodu yahay in ay tagaan magaalada Xumbabays si ay u booqdaan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka. Kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka Bari, Dr. Muuse Jibriil Maxamed iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa ururka Daryeel ayaa safar shaqo ku tegay magaalada Xumbabays ee gobolka Bari. Ururka Daryeel ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii teeramka ee iskuulka Bilaal Primary and Intermediate ee magaalada Xumbabays. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay xaaladda iskuulkana ka warbixiyey maamulaha iskuulka Bilaal Cabdi Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamed Muuse oo ka mid ah guddiga waxbarashada iskuulka Bilaal. waxa way marba in buu soo ahaa caruurta marbay 10 iyo 15 iyo ahaayeen maanta waa aragtaan maartay khayrka maartay ilaahay meesha ku beeray oo maartay ilaah baan uga mahadcelinaynaa insha Allah bil caalamiin gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa qolada waqtigooda ku soo bixisay oo nafiga maalba ku soo bixisay juhdigooda ku soo bixisay ardaydeena inay inoo dhiirigeliso oo xafladan sharafta leh inoo qabato aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay baa mahad leh annaguna waa insha Allah wax weeye waan shaqaynaynaa wixina loo ka baahan yahay diyaar baan leenahay wala diyaar baan la ahayn ardayduna waa ku mahadsan yihiin iyo macallimiinta sharafta leh oo aqoontaas soo gaarsiiyay. Gudoomiyaha guud ee ururka Daryeel Cabdullaahi Muuse Ismaaciil iyo xogayaha ururka Cali Cabdi Cali ayaa madasha kelmado dhiirigelin ah ka soo jeediyay. waxaan rabaa inaan munaasabadan oo ah munaasabad farxadeed munaasabad aan ku abaalmarinayno ardaydii ugu sareysay imtixaankii sanadka 2021-2022 kaalmaha hore ka galay imtixaanka iskoolka Bilaal Primary and Intermediate School. anagoo taa ka duulayna waxaan aan isu xil saarnay bal ardaydii aan sanad ka hor halkan waxaan ku barinay maadaama hadda aan ahay urur gudoomiye urur oo ka shaqeynaya arrimaha horumarinta deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari waxaan garowsanay inaan hawshii ugu horeysay aan qaban lahayn ama meel ka baxsan meeshii ururka lagu aasaasay oo ah Boosaaso ay noqoto deegaanka Xumbabays annagoo ka bilownay ajandahayada si aan u abaalmarino ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2021-2022 ururkan waxa uu ka kooban yahay xubno dhan 14 qof waxa maanta meesha ka maraya gudoomiyihii iyo xoghayntii ururkan wax maalgelin kama helin ilaa heer caalami haday tahay lahayd dawlad haday ahaan lahayd jaaliyad haday ahaan lahayd NGO maantay abaalmarinta aan halkan ku wadno ma ahan abaalmarin aan meel kale ka keenay waa abaalmarin aan anagu iska bixinay biilashayda ka jarnay si aan dhiiranaan iyo moral ba ugu noqoto ardayda quruxda badan ee maanta ka qalan jabinaya ama xafladda sanadkan dugsiyeedka 2022 awgeed ayaan hawsha isugu xil saarnay mid waa taas mid labaad waxaan rabaa inaan waalidiinta iyo macallimiinta aan ku booriyo inay wada shaqeeyaan ardayda ogaadaan runtii arday aan walaalkan macallin baan ka ahaa waxaa jirta arday badan oo waxa waaye wadankan kaalin muuqda ka gal doonta insha Allah bismillaah kariim haddii aad garab siisaan ramkii laguna dhiirigelinayo runtii waxa isku soo abaabulay oo waqti iyo maalba ku bixiyay urur la yiraahdo Daryeel Development Association ururkaas oo ah urur dhalinyaro runtii iyaga isxilqaamay ururkaas waa urur dhalinyaro waxaan u malaynayaa maanta aniga iyo gudoomiyihii ayaa halkan maraya marka waxaan rabay inaan inii sheego in ururka Daryeel Development Association uu arintaas soo qaban qaabiyay kana shaqeeyo waxbarashada caafimaadka horumarinta deegaanka
nabadaynta researchka waxyaabahaas oo dhan ayuu ka shaqeeyaa ururku waana urur si fulanteera ugu adeega bulshadiisa kana shaqeeya dhammaan deegaanada gobolka bari. ugu dambayn gudoomiyaha magaalada Xumbabays Axmed Ismaaciil Maxamed iyo kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka bari ayaa hambalyo u diray ardadii kaalmaha hore ka galay imtixaankii teeramka sidoo kalena ku bogaadiyey macallimiinta hawsha adag ay u hayaan bulshadooda. mahad celinaynaa ragga halkan keen isugu keenay ee juhdooda ku soo bixiyay inay Xumbabays tagaaneen inay ardayda ay dhiirigeliyaan waxa weeye dhiirigelintaana waxay ka mid tahay waxbarashadii oo kale sababtoo ay ku tahay qofku markii la dhiirigeliyo niyadda loo dhiso carcar buu la soo kacayaa waxa weeye niyad fiican buu keenayaa kaalinta koowaad kuwa galay kuwa ka dambeeya oo ka hooseeya baa dhiirigelin soo qaadanaya arrinta aad iyo aad baan u bogaadinayaa ragga ka soo shaqeeya urur ka soo shaqeeya oo dhalinyaradan aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waana la shaqeyn doonaa insha Allah biidmillaahi kariin haddii nafteedu gaadho dhammaan waxa weeye waalidiinta halkan fadhida hooyooyinka oo iyagu had iyo jeer culayska ugu badan oo ilmaha haya waxaan idinka codsanaynaa ilmaha yaryar oo ubadka soo koraya in mustaqbalkooda iyo aayahooda la ilaaliyo in say u bartaan diinta u bartaan maadooyinka maadiga u bartaan akhlaaqda iyo xishoodka ay u bartaan ixtiraamka macallimiinta ay u bartaan wada shaqaynta iyo isku duubnaanta ay u bartaan oo lagu asaaso bulshada dhammaystiran oo halkan degan oo reer Xumbabays oo isku duuban waxaan kula dardaarmaya inaad ka shaqeysaan waxbarashada iskuulkeena ka shaqeysaan